daawadayaal caawa abbaara markii laga soo baxay salaada maghrib mid ka mid ah libaxyadii uu xanaaneyn jiray siyaasiga cali maxamed waran cabdi ayaa ka baxsaday goobtii lagu xanaaneynayay oo ku taala magaalada Hargeysa barigeeda markii uu baxsaday libaaxaasina waxa uu waxyeello u geystay mid ka mid ah dadkii jaarka ahaa ka ag dhawaa halkaasi oo haweenay ah kana soo jeeda dalka Itoobiya laguna magacaabo Caasho sida ay dhaqaatiirtu noo sheegeen dhaqaatiirta ayaa halkan oo ah isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa kula tacaalaya xaaladda Caasho oo aad culus isla markaana ay soo gaareen dhaawacyo aad u xoog leh mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha oo noo warramay ayaa waxa uu yiri guriga iyadoo xamaamka gelaysa ayuu ka soo daba dhacay gabadh jaarkeeda taxi ka soo degtay baa ku qaylisay oo intiiba xabadda laga rido jiidanay haddaan laga soo gaadhin dee uu cuni lahaa dee ilaahay baa intaas shimbir uga dhigay lagula tacaalayaa dhakhtarka ku wax ka gaarsiin intaa dambe dhabarka iyo intaa madaxa ee neerfisada iyo intaa madaxa sare inga laakiin waa lagula jiraa weli maayirka hoggaanka magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dadku ay iska jiraan isla markaana kadib sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliland ayaa war ka soo saaray waxaana ay sheegeen inay ku daba jiraan isla markaana ay ku rajo weeyeen inay soo afmeeraan saacadaha soo socda wixii faahfaahin ay dheeraad ah halkan laga soo Khalid Mahdan iyo Sahan TV